way kulanti wanaagsan saaxiibal soo dhawaada waxaan rabaa in ay la wadaago xogta iyo wararkii ugu dambeeyay dawladda Itoobiya iyo waliba sidoo kale qorshaha wajigabax ah ee Itoobiya waqtigan ay markaasi kulansanayso misana markaasi ay wajahaydo waxaana jira warar ka soo baxaya warbaahinta dawladda Itoobiya oo si weyn markaasi loogu hadalaya kuna aadan in markaasi qorshihii ahaa ama damci ahaa ee Itoobiya iyo Soomaaliya markaasi ay ka haminayday inay ka hesho xeeb amarkaasi biyaha cad ee Soomaaliya laakiin hadda waqtigan la joogay madmado weyn uga furmay kadib xilligii doorasho Somaliland ay ka qabsoontay halkaasi una ku soo baxay musharax madaxweyne Cabdiraxmaan Cirro iyadoona markaasi la sheegay ama ka soo baxaan wararka Itoobiya ay ku aadan yihiin in waqtigan la joogay ay raadinayso sidii Soomaaliya mar kale ay saaxiib dhow ay ula naqal lahayd iyadoona markaasi iska xumeeday xaaladda siyaasadeed ama markaasi arrimaha siyaasadeed ee sida weyn halkaasi ugu jiray markeedii hore laakiin hadda ayay u muuqataa in Itoobiya ay wajahaydo xaaladii ugu xumeed oo ku aadan arrimaha siyaasadeed iyadoona iskaga ciyaartay arrimaha diblomaasiyiinta iyo waliba sidoo kale caalamka intiisa kale bana sawir xunna ka bixisay Soomaaliya iyadoona markaasi damaceedu ahaa in shakhsi si weyn markaasi xiriir ula sameeyay kadibna u been guuray mas'ala markaasi arrin la yaab leh ku sameeyay taasi oo ah in markaasi Muuse Bixi oo ah madaxweyne xilligan talada ka degay ee Somaliland ee markaasi mashruuc saxiix ah markaasi la galay laakiinse aan u hirgelin waqtigan la joogay waxaana sidoo kale hadda soo foosartay cabsi ku aadan in Cirro u si ambaqaadi kari waayo qorshaheedii ahaa in markaasi uu la si ambaqaado saxiixii Muuse Bixi ay la galeen laakiin hadda la joogay ay si weyn uga baqayaan in musharax amarkaasi madaxweyne Cirro si weyn u diidi karo misana markaasi ay sanbafuri kareenin buuga halkaasi ka furnaa waxaana sidoo kale qoraalka ka soo baxaya lagu sheegaya ama u qornaa ayna leeyihiin musharax madaxweyne Cirro madaxweynaha Somaliland waxaan mar kasta markaasi la garab taaganahay wax kasta ay ku aadan ama markaasi dhisida dawladdiisaba aan heeli hooba la garab istaagi doona siyaasadda diblomaasiyadeed iyo waliba sidoo kale tan aragtida ee markaasi waqtigan la joogayba laakiin waxaan mowqifkeena ku aadanaa ahaa in markaasi saxiixa Muuse Bixi iyo waliba sidoo kale xisbigiisa koodii hore sida weyn inoo dhaxyaalay in markaasi aan wax weyn ka wada qaban doono laakiin waxa u muuqata hadalkaasi waqtigan la joogay in Itoobiya markaasi baaris iyo waliba sidoo kale baryo weyn ay ugu taagan tahay waqtigan la joogay in mar kale Soomaaliya ay la midowdo taasina markaasi u muuqato in xaaladdu ay ku sii cakirmayso Muuse Bixi oo horay markaasi ugu been guuray masana markaasi buugaas u furay laakiin waqtigan la joogay si weyn ay hadda ay u muuqato in markaasi gabi ahaanba daaqad uu ka bixi karo inkastoo Soomaaliya mowqif cad waa markaasi mowqif cad ay ka qaadatay een ahaa in ay kala dagaalanto arrimaha diblomaasiyiinta iyo waliba sidoo kale xiriirka caalamiga noocyadiisa kala duwanba walow hadda wararku ay sheegayaan in Itoobiya ay mar kale u soo tafaxiidanayso in Soomaaliya raaligelin buuxdana ay siin karaydo laakiin xaaladda ayaana u muuqata waqtigan la joogay inkastoo Itoobiya isku dirtay geeska Afrika qaybihiisa kala duwanba ee halka ururada iyo waliba sidoo kale wadamada kale xitaa indhaha si weyn ay ugu hayeen xaaladda Itoobiya iyo Soomaaliya una muuqatay Itoobiya markasta inay markaas ay ku qaldan tahay talaabada culus ee ay u qaadaysay Soomaaliya ee ku aadanaa in gobol ka mid ah Soomaaliya misana qayb ka mid ah Soomaaliyaba markaasi damac weyn ka soo galay laakiin siyaasi u been guuray una sheegay in markaasi uu talaabo u qaaday markaasina dal uu ugu tilmaamay kadibna saxiix uu la galay halka Soomaaliyana ka hor istaagtay guud ahaan caalamka qaybihiisa kalena si weyn looga hor istaagay رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد أيها هذا وجهه حالة تي أو حميد أبيد يضعنا مركز قطع وليس أو بدنا هذا صوف وصار أحد سنة مركز علاس سنة أما دجالي هالكاس أو كصعود ولو أي جيران ورك له شيء جاي إن هذا اللي شوجاي سفارة ده الصومالية قيبها كله أما وضم هذا كله كل هذا حرير كله دون أي لسمينيين سدي حل بحل وجاري لها تبشروا كأدنيت إن صومالي لان مركز هوري أي مركزي الباب خلدنا أوفرتي دولة إثيوبيا لكن حدا أي مركز حالته كعسلاتي كدبنا سانسانتيادو أي كوجودي شرطة سدي أي مركز كهلي لهيد صومالي إن مركز لم يدودو إذا ما ده أي أسي جوجان صومالي إن كستو دولة الصومالية جوان أذك أي كجارتي كنا أدنى أي أها إن مركز أي كسر دو دلك إذا ما ده إثيوبيا قيبنا أي سنك أهانينين إذا ما ده عصب أمركز هولجلك عصب أي دلك صوماليا لبضو كن لحيو لبعتن كدلك دب أوجو فرمايو إثيوبيا نيجب أي كلا كلانتي هالكاسنا
halka markaasi heshiiskii hore ee Soomaaliland ay la gasheen waqtigan ay wajahaydo xaaladtii ugu xumayd wixii warar kale ka soo kordha xogtaasi halkan ayadu kugula wadaagi doona bugga ku soo biira oo followna soo dhaha si like garee muuqaal oo share garee meel dheerna nala gaarsiiya